بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan halkan u tacsiyeynayaa anigoo ah xildhibaan ka soo jeeda deegaanka degmada Awdheegle ahna wasiirka wasaaradda waxbarashada waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan ummadda reer Koonfur Galbeed gaar ahaan reer Awdheegle aan degmada aan matalo waxaan u tacsiyeynayaa gudoomiyaha ehelkiisa iyo qaraabadiisa dhammaan waxaan leenahay sawir iimaan Allah naga siiyo walaalkeena Maxamed Yiro Aweys oo ka geeriyooday qarax ka dhacay degmada Awdheegle gaar ahaan dowladda shacab Allah u naxariistaan leh aad iyo aad kulli waxaad ogtahay qarax hadii lagu dhaho qaraxna waxaa iskala qolada nabaddiidka ah ee al-shabaab marka insha Allah taala waxaan leenahay qabrigiisa waasic Allah waa miinada dhulka lagu aasayo waa tanmiinada dhulka lagu aasayo kolanya ayaa socotay marka muqdisho ay u soo socdeen wadadana qaraxaas kula kulmay marka asaa ilaahay calafkiisa ugu daray intii rabbi meesha ugu timaado ku geeriyoodo maxaad inooga sheegi kartaa gudoomiyaha degmada Awdheegle ee qaraxa kolonyada uu la socday lala eegtay uu ku geeriyooday inta adiga ka taqaanay Allah nin fiican buu ahaa gudoomiyaha degmada Awdheegle muddo dheerna asuu ahaa waagii indhacad ilaa hadda maadaama isbedel badan uu ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose weli asiga la gudoomiye noo ahaa marka nin oo maanta oo fiican oo dadaalayo oo dadka deegaanka u dadaalayo ahaa waxaan leenahay qabrigiisa iyo ummadda uu ka tagay sawir iimaan Allah naga wada siiyo anagoo ku hadlayo magaca degmada Awdheegle ana xildhibaanka matalaya deegaanka Awdheegle ma jiraan warbixino kale idinka hesheen oo ku saabsan cid la saarneed oo waxyaalo kala soo gaartay mise qaraxa kaliya wuxuu ku geeriyooday gudoomiyaha degmada maya waa kaligiisu ku geeriyooday tan kale xigtana kolonyo fara badan ay ahayd marka baawurkii asigu saarnaa kaliya asile qabsatay marka wax kale hadda zaid annaga warbixin aan ku helno ma jiro waxaan la xiriiray laamaha ammaanka oo ku sugan degmada Awdheegle ugu horeeyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu noo cadeeyay inay jiraan qaraxaas qof kalena uu ku geeriyooday